السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga muslimiinta meel walba ay joogaan aad iyo aad baan u salaamayaa. Kulley walaalo markaad mashruuc khayr la bilaabo albaabadiisu kugu sii furmaan. Maanta waxaan u yimiday walaalo Suuriyaan oo halkan deganaa lacag lagu soo dhiibay. Waxaan la kulmay oo isna si kaysii la kulmay walaalkay walaalada ka mid ah jazakallahu khayr. Walaalkan waxa weeyaan baahi badan buu ka cabanaya hoteelka liftiisa lacag buu ku leeyahay. Maxay ahaydeen xaaskiisu way geeriyootay. hoteelka waxaa degan isagiyo maxay ahaydeen inankiisa yar في عندك أولاد ثاني؟ لا ليس غير هذا فقط. بس ما شاء الله aabahaasi wallahi waxa ku leeyahay maalin waxbaan cunaa maalin waa weynaa ikhwati fillah dadka walaalaha muslimiinta meel way joogaan dadkan waa dad qariiba nagu dhex dhibaataysan maalin la cunay maalin la waayay wad aragtaan wajihudooda khayr badan ba ka muuqda aabahana aaba khayr badan waa dadka waa ka khanjilaabina wax weydiisto xitaa inankiisa yar ma sha Allah waa waxa uu baray quraanka wad arkin kartaa iqra علينا القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقريك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نارا كبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم ما شاء الله aabahaas waa ilmahaas la tarbiyadeyno aabahana waxa uu baahay musaacado inaan mashruuc furno meel inaan shaqo siino wixii awoodina karaan keenan hoteeladkan ku jirnaan aan ka saarno dadka inaga u maqan. طبعا يا أخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم عارفون ما الذي حصل معنا في سوريا وهذا هو كل قضاء الله وقدره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بارك الله فيكم يا أخواني جزاكم الله كل خير من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. بارك الله فيكم يا أخواني جزاكم الله كل خير. walaalayaal aabaha la soo caawiyo waa dadka dhibaataysan insha Allah dadkaasaan iskugu naxno qalbi naxariis lahayna galo qof waliba wacdu awoodi karayso wuxuu soo dirta uu soo dir insha Allah nabigiisana iyo shaashadan ku soo qori doona way la soo xiriiri doontaan qadri mustadaa waxa walaalka ku caawin karto walaalka ku caawi hayaraysanin in fiidiyogan qofku soo gaano waxaan ka codsanay inuu faafiyo rubba ma ogid wax intaas daqad ka dhigo inuu ilaahay mid wax kale uu arko sababta adiga nashrisa ugu dira lacag marka walaalihiin garamaan siino waa dad qariiba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.